بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلay waxay ahayd maalin taariikhi ah Soomaaliya dhan ay wada xasuusan doonto waxa dhacday doorasho madaxweynenimo dalka ka dhacday doorashadaas aan ka qayb galay dad badan oo Soomaaliyeedna ay ka qayb galeen nasiib wanaag waxa ku guuleystay ra'iisul wasaarihii hore haddana ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilahi Farmaajo marka hore waxaan udiray Hampalyo aan leeyahay ilaahay xilka aad qabatay ha ku guuleeyo Soomaaliya way ku hanweyn tahay baahidii badnaydna oo loo qabay isbedel inuu yimaado shalay waxa ka jawaabay xildhibaanada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa xildhibaanadii qaranka oo ayagu gutay xilkoodii una gargaaray Soomaalida soona dhaweeyay isbedelkii dadku ay tabanayeen sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa shacabka Soomaaliyeed oo ayagu meel walba ay joogeen soo dhaweeyay isbedelka rayn iyo farxadna magalada iyo wadanka iyo adduunyada daafaheeda soo dhaweeyay sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynihii hore Cusub Maxamed oo asagu si sharaf leh si wanaagsan u aqbalay natiijadii doorashada xilkana wareejiyay waqtigu soo shaqeynayana ogolaaday inuu xafiiska wareejiyo si nabada si dimuqraadiyanimo asagana in loo hambaliyeeyo waxaan isleeyahay marka si Soomaaliya ay hore ugu socoto isbedelkana dhab uu noqdo in Soomaaliya ay markan fursad haysato in uu baarlamaanku fursad siiyo madaxweynaha iyo xukuumadaha imaan doona si ay wada shaqeyn u helaan horena u dhaqaaqaan sidoo kale shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay fursad siiyaan dawladda iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo wixii kale oo la shaqeyn doona si aan horey ugu gudubno si niyad sami iyo rajo soo celin Soomaaliyeedna aan uga shaqeyno waxaan sidoo kale hambalyo u diray Soomaalida gobolada wadanka ama dadka kala gedisan oo siyaasadda dhan walba kaga jira in ayaga laftigooda ay fursad siiyaan dawladda cusub isbedel ka dhashay ayna soo dhaweeyaan taageeraan waxaan isleeyahay in la siiyo madaxweynaha waqti iyo fursad uu ku fakaro uu ku soo dhiso xukuumad oo ama ra'iisul wasaare iyo xukuumad ku soo dhiso baarlamaanku inaysan ku degdegin oo ama shacabku aysan ku degdegin aan go'aano laga gaarin aan loo baahnayn in waqtigooda loo huro loo daayo ayaguna ay isbedelkaas si dhab ah ay kaga jawaabaan intaas oo dhan waxaan isleenahay waxaan intaas u taageeranaa isbedelkana u taageernay waxay ahayd Soomaaliya dhibkan iyo dhibaatadan ay ku jirto inay ka baxdo waxaan isleeyahay kolley madaxweynaha cusub waxyaabaha u horeeya uu ka jawaabi doono in noqon doonaan abaarahan ku habsaday wadankeena anaguna dhammaan waa la shaqeyn doonaa midowga musharaxiinta oo ayaga laftigoodu kamid aha isbedelka ayaguna way wada taageerayaan wayna wada taageersanaayeen haddana way wada shaqeyn wacan ayaan la daba taaganahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waxaan isleeyahay horta midda u horeysa in uu sameeyo rajo soo celin ummadda Soomaaliyeed oo rajadii laga qabay siyaasadda ama dib u heshiisiinta ama horumarka inuu soo celiyo horta rajay noqonaysa isbedelku waa rajo abuur marka waxaan u malaynayaa haddii ilaahay yiraahdo inuu noqdo madaxweyne Soomaalida rajo u abuuro meel kasta ay joogaan kuwa jooga xeryaha qaxootiga kuwa wadanka dhexdiisa jooga kuwa ay dunida daafaheeda jooga inuu shacabka Soomaaliyeed rajo u abuuro midda labaad waxa weeye wuxuu markuu waqtigu shaqeynayay waxa lagu xasuustaa inuu ahaa ninkii sida joogtada ciidamada u daryeeli jiray ciidamada mushaarkooda bixin jiray waan wada maqlaynaa xalay wixii magaaladan ka dhacay rasaas iyo dabaaldeg marka waxaan isleenahay waxa ugu weyn oo anaka baahida nagu hayaan wax weeye amniga asagu inuu ciidamada si gaar ah isha ugu hayn doono ayaan rajaynaynaa labadaas eray baan kusoo koobaya asaga wax qabadkiisana kolley program siyaasadeedna uu u degsan yahay waana mahadsantahay haddii aan su-aal ku weydiiyey waxaa ka mid ahayd musharaxiintii xilka u tartamay waxaan hogaamiye u tahay xisbi ma laga yaabaa xisbigiina inuu talada dalka wax ku yeesho waa mahadsantahay xisbigeena xildhibaano ayaa ugu jira baarlamaanka waana jecelnahay in aan talada wax ku yeelano waana dadaaleynaa xisbiguna ma guurayo
talada waddankan inaan wax ku yeelano waa dadaaleynaa inaan dadka la kasbano inaan dhalinyaro kasbano inaan baarlamaanka dhexdiisa dad ku kasbano ayaan isku dayaynaa marka xisbigu waa mid joogtaa waa mid dalkana u adeegi doona intii looga baahan yahay